Soomaaliya waxay ku biirtay Saudi, Turkey and Pakistan Defense Pact waxa la yiraahdo. waa wadajir military ee aad iyo aad u awood leh oo ay sameysteen Turkiga iyo Pakistan iyo Saudi Arabia. Soomaaliya iyo dawlado kale oo fara badan oo Masar ay kamid tahay, Oman ay kamid tahay, Djibouti ay kamid tahay, ilaa iyo 12 dal ayaa ku soo biiray. Maxay ka faa'iideen? Maxayse tahay baagtigan ama waxa waaye runtii ururkan u dhigma sida NATO oo kale ah ee dalalka muslimka badanaaba ay waxa hadda ku wada bahoobeen. ururkan waxaa bilaabay markiisii ugu horeysay Pakistan iyo Sacuudiga. waxaa marka dambe loo bedelay Turkey iyo Pakistan iyo Saudi Arabia. waa wax runtii waxa waaye lagaga hortagay caqabadaha iyo culeyska faraha badan ee dalalka islaamka ka haysta. weerarada nooci hadda ugu dambeeyay ee Iran iyo Israel iyo Mareykanka ka dhacay 28 bishii February ee xaaladda xun ee ilaa hadda ka taagan tahay marinka Hormuz. waxaan aragnay inay Iran si toos ah u weeraraysay dalal aad u fara badan oo runtii waxa waaye qaliijka ah iyo Saudi Arabia intaba. iyadoo u weeraraysay markii Mareykanka uu runtii waxa waaye Iran dagaalka la galay iyo Israel in ay baasiskii iyadana ay weeraraysay. oo sababtan ay tahay meeshii laga soo weeraray waa inaad adina waxa waaye weerar aad ku qaadaa. arrintan cusub ee runtii ay ku bahoobeen Turkey iyo Pakistan iyo Saudi Arabia oo runtii waxa waaye Turkey oo aad wada taqaanaan oo runtii waxa waaye awood NATO lambar 2 ka ah oo runtii waxa waaye teknolojiyo badan ku hubaysan ee runtii waxa waaye awood maanta waxa waaye muuqata ah ee caalamka waxa waaye dushiisa taagan. Pakistan oo aad wada garanaysaan iyadana oo runtii waxa waaye awood nuclear ku hubaysan, diyaarada casriya, baalido aad u fara badan oo runtii dalkaas weyninka badan loo indiyo bilyanka kor u dhaafay runtii waxa waaye aanan marnaba soo hawaysan karin. iyo Saudi Arabia oo runtii waxa waaye aad aragteen oo dalka adduunka waxa waaye ugu shidaalka ugu qanisan ah oo runtii dhaqaalaha day noqoto iyo maalgelin iyo waxa waaye runtii wax walba inay waxa waaye maanta lacag fara badan ay hayaan oo waxa waaye ururkan ay runtii wax badan ay ka bedeli karaan Sacuudiga laftarkiisa. marka Soomaaliya waa ay ku soo biirtay, Masar ayaa hadda loo ogolaado ku soo biirtay. marka hore aad iyo aad laga weecanayo oo runtii waxa waaye Israa'iil iyo Imaaraadka inay xiriir la leedahay lagu tuhmaayo. marka ururkan haddeertaan ummadahan ku soo wada biirayaan ee runtii NATO oo kale ah. horta ujeedadiisu waxay tahay dal kamid ah dalalkaas haddii la weeraro inay la mid tahay dalkaas oo la weeraray. Sacuudiga hadda Iran weerarta ka soo qabo waxay ku qasban tahay Pakistan iyo Turkiga iyo ururada kale ku bahoobay ama dawladaha kale runtii ku biirayna inay waxa waaye Sacuudiga la saftaan oo Iran ay la dagaalamaan. laakiin Iran geemku waa ay fahamtay. maxay sameynaysaa marka iyadana? Iran waxay sameynaysaa iyada mar walba waxa wax la yiraahdo proxy war ayaa u jira. Yemen ayaa ku jirta. hadda waxa yaab leh Yemen ayaa ka mid noqotay xataa waxa ururkan 12 hadda aan idin sheegay Yemen ayaa ka mid noqotay. marka waxa hadda proxy warkii ma sii socon doona waa su'aasha. ma loo isticmaali doonaa waa Yemen laakiin waxa ay kala qaybsantaa sida aan la socono. Yemen waa ay kala qaybsantaa laakiin dawladda la aqoonsan yahay ee Yemen waa waxa heshiiska ay la galeen ma ahan Xuutiyiinta waxa ay runtii gacan saar kala leh Iran. marka waxa waaye Iran runtii waxa caqabado badan ayaa dhinacan kaga imaan kara. laakiin waxay iyadana ku dadaali kartaa in ay proxy war u isticmaasho oo weligeed ay u isticmaali jirtay waxa waaye ma taqaanaa ku dhufay ka carar ah oo nimanka Hamas iyo Xuutiyiinta iyo Hizbullah iyo wax noocaas oo ay runtii Lebanon iyo Syria iyo Iraq iyo Yemen iyo meel badan ay ku haysato. marka haddii hadda ka soo qabo Xuutiyiinta ay weeraraan markab Sacuudiga ama dal Sacuudiga ama shidaal Sacuudiga ay weeraraan maxaa dhici kara waa marka? waxaa dhici kara in la isuba haysto. marka yeedan ugu jirtaa waa hadartaan waxa waa iyaga waadan ugu jirtaa runtii Sacuudiga. laakiin Mareykankii shalay waxa waa kaligiis ku ahaa ama Israa'iil iyo kaligood ay ku ahayn marka Sacuudi ama baysaskooda la weeraro inay difaacaan. maanta waxay heleen difaac ka fara badan oo runtii waxa defense pact waxa la yiraahdo 12 dal ay ku kooban yihiin hadda ayaa meeshii waxa waa yimid. marka waxa 12 kan dal macnaheedu ma weerari doonaan Iran waa su'aasha. marka waxa waa ma game kan oo runtii waxa waaye ay runtii hadda waxa waa heshiisyadan la sameeyay ma heshiis ay waxa Mareykanka ka dambaysa ma heshiis Israa'iil ay ka dambaysa ma heshiis iyaga isugu danaynayana. marka waa su'aalo far badan ayaa meeshii taagan. Soomaaliya wax badan ka faa'iideysaa iyada. Soomaaliya waxay ka faa'iideysaa in maanta waxa waa marankeedii waxa waa Israa'iil laftirkeedii waxa waa fargelinta baan ay ku haysay inay waxa waa heshiiska Soomaaliya la galay oo ay u madax bannaan tahay. hadda meeshii waxa waa RSF oo laga saaray Suudaan la galay heshiiskan.
marka waxa waaye waxyaaba aad u fara badan Soomaaliya waa ka faa'iideysaa dalal fara badanna waxa waaye runtii caqabad ay ku tahay sida Iran oo kale marka waxa waaye heshiiskan laba kulaba ilaa iyo xaguu sii socon doonaa marka ilaa xaguu gaari doonaa oo runtii hadda waxa waaye saddexda dal ee awoodda leh ay runtii ku bahoobeen hadda ay 12 soo noqdeen xaguu gaari doonaa marka wuxuu gaari doonaa inuu muddo shaqeeyo xaaladdan isbedesho laakiin Mareykanka hadda waxa waaye marnaba waxa waaye ma hakinaayo maranka Hormuz iyo inta Donald Trump ama Israel ay meesha ay joogto laakiin waxa dagaalkan ka faa'iiday Iran runtii waxa waaye billions of dollars hadda ka helaysa marankaasi tuu xalaal wax soo mara Mareykankana waxa uu leeyahay waa controlaya laakiin hadda waxa waaye Yemen ayaa ku soo beertay Xuutiyiintii oo labada marinba waxa waaye tii Baabul Mandabki iyo maranka Hormuz ayaa runtii labadaba waxa waaye isla ololaayeen marka siyaasada dhamaanay dhawaan ma aha marba waxa waaye heshiisida cusub iyo geemankan cusub marna kooxay dan u tahay marna kooxay ka soo horjeedaa laakiin waxa waaye tan Soomaaliya daweyn ayaa ugu jirtay heshiisidaas mar haddii marankii Soomaaliya waxa waaye dawladeeda federaalka heshiiskaas lagu galay Mareykankana markaas raali ayuu ka noqonayaa Israel laftirkeeda raali ayay ka noqonaysaa dibadaabiyada iyo kala qaybinta ay wadeen markaas waxa waaye meeshaas in nidaam iyo difaac loo sameeyo waxay dan ugu jirtaa iyagoo dhan dhaqaalaha Mareykanka labadaas marin uu ku xiran yahay jidaalka adduunka labadaas marin uu ku xiran yahay midna 30 ayaa mara midna 50 ayaa ku dhawaad mara marka boqolkiiba waxa waaye almost 80 adduunka waxa waaye maraakiibta adduunka ayaa halkaas mara marka waxa in la ilaaliyo adduunka dhan ayay dan ugu jirtaa marka barnaamij aad u dheer waaye runtii waxa waaye falanqeyn kale iyo qaybo kale waxa ugu hadli doonaa